xubno ka mid ah maamulka iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye garabkiisa laanta Finland ayaa shir isugu yimi kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd sidii xog waran guud ay laantu kala qaadan lahayd isla markaana guddi qabanqaabo loogu saari lahaa qabsoomida shir sanadeedkii laanta ee 2015 dhanka kale waxaa isla goobta lagu doortay gudoomiyaha garabka haweenka ee laanta Finland Marwo Nimco Cumar madaxdii goobta ka hadashayna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa halka maanta waxay isugu yimi guddigii iyo xubnihii xisbiga kulmiye laanta Finland shirkaas oo ujeedadiisu ahayd sidii laanta kulmiye Finland ay u sameyn lahayd in la magacaabo xilal cusub laanta kulmiye Finland loo magacaabo laba in shirkii sanadaha ahaa laanta kulmiye ay dhacdo hadii la yiraahdo bishan May dabayaaqada insha Allah hadii la yiraahdo iyo sidii guddi loogu saar lahaa qabanqaabo xafladii 18 May oo iyana hadii la yiraahdo bishan hadii la insha Allah bartamaha hadii la yiraahdo rajeynayna inay dhacdo bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa Nimco Cumar maanta shirkan ka soo qayb galay xisbiga kulmiye aad baan ugu faraxsanahay si wanaagsan buu noogu dhacay insha Allah anagu waxaan doonaynaa sidaas oo kale insha Allah hadhowna uu noogu qabsoomo si walba markasta isku baahanahay aan isku nimaadno dhanka kale waxaa goobta warbixin ka soo jeediyay madaxa xiriirka bulshada iyo madaxtooyada mudane Cumar Cabdi Nuux hadaladiisina waxaa ka mid ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta aan halkan kala soo qayb galo xubnaha kulmiye hadii ay noqoto xubnaha guddida fulinta iyo xubnaha firfircoon oo iyagu qabanqaabinayay shirkoodii ama shir sanadoodkoodii ay ku qabanqaabinayeen abaabulka xisbiga kulmiye anigoo muddo dhowr cisho joogay dalka teeda kale waxaan anigu soo baxay oo halkan aan socdaal lagu marayaa dano gaara iyo dano qaranba labadaba socdaalkayga inuu isugu jiraa haddii rabbi xugmayo wixii qarankaana si guud baa lagu wada shaqaynayaa wixii gaarana waxaan jecelahay inay hawlaha degdeg ugu dhamaadaan kabacdina aan ku noqdo sidaa adbaad jeeto xilka cusub ee la magacaabay iyo Maxamed Xasan Mataan telefishinka qaranka Soomaaliland ee Helsinki Finland